kulankan ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay waxaa soo qaban qaabiyay siyaasiga isbedel doonka ah Xuseen Xasan Cabdi waxaana ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed odayaasha dhaqanka siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Baydhabo. Ujeedada kulankan ayaa waxa uu ahaa wadatashi ku aadan doorashada dhici doonta 17 November ee sanadan 2018. Ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay Xuseen Xasan Cabdi oo ah musharaxa u tartamaya xilka madaxweynenimo ee Koonfur Galbeed waxaana uu sheegay in muhiim ay tahay isbedel in la helo go'aanka geedka deegaanka 100 sano oo dambe ya quseeyo ariina quseeyo dowladnimo quseeyo sababta maxay tahay waan kasne hadii walaashay jikada ku jirto hilib ay soo kariso bariiska kariyo baastada kariyo haddana ay gaajaysan leeyahay lankan lay siyaas dhibaatitaal walaay man sii haya meesha taga loo baahan yahay waxay la tahay marka walaalaha mas'uuliyiinta xildhibaanada ah u sheeg walaal jara nus warama aniga waxaan siri federal nidaamkii walaalkeenkii magoradaas ha nin Soomaali sheegto oo intaan soo noqotay waardiya wajara boosasna ma ku helo جلوا المرأة وهلو هالجنسنا مجرد لين لا تاني لا بس أنا هاي أنا 6 سنة وكبر يقولون لي هاي. qaar ka tirsan xildhibaanadii kulanka ka soo qayb galay ayaa iyaguna tilmaamay in ay ka fiirsan doonaan hoggaanka Koonfur Galbeed oo iyaga laga rabo inay doortaan. Ona ma turjumaane bulshada Koonfur Galbeed yaan dhaamisadiida qodob. الدولار بولا يمكن ابن الهربة تبغيته أدي إلهي كحساب تماسا ولا ينقلب على النوبيا عطوك بعد ما يبغوا النوب يا مفرد إلهي ما يديس كيف إلهي ما ينكم أحد يعني أمرين الله يدور شنو من إلهي وكفران اللي تمرنا ما نوشيني أين الدور أين الكوفر بالبيت تمن يكون شرع كوفر بالبيت أقول يعني أجلك أنتني اللي فدي أنا أنت بتشي أنا بيدور عن طعام إلهي ما يديسه وشرعيتها هو ما تبقى المسك سهرا وعلى إيمان كانت كيسو سورة البقرة أما سورة الله آيات الله بقول أفرت من التدور إلى أن كل يوم مع الشاهد كان كالرمالي والله يؤتي منكم وإذا شاء والله سميع عليم إلهي وأكبر تهنا أين المحروم marka Xuseen waxaan fariinaa in ayadaas aad ku jirto Cabdullaahi Nuur Aadan TV-ga caalamiga ee SAB TV magaalada Baydhabo.